martida nagala soo qayb gashay barnaamijkan mansab kasta oo ay meesha ku fadhiyaan iyo bahda saxaafadda mar kale galab wanaagsan sida saaxiibkay uu sheegay Cabdicasiis kulankan wuxuu ku saabsan yahay ciwaanka meesha ka muuqda ku saabsan muhiimadda ay leedahay xurriyadda saxaafadda xilliga doorashooyinka ay dhacayaan sida ogtihiin dalalka dunida waxay leeyihiin habab ay ku sameeyaan dimuqraadiyaddooda gaar ahaan hanaanka doorashooyinka ee dalalkaas ka dhacaya markasta oo hanaankaas dimuqraadiyadda wadamada dunida ay qabsanayaanna waxaa jira qaybo ka mid ah bulshada oo ku sameeya korjoogteyn ama la socda habka doorashadaas ay u dhacayso inay noqoto mid ka turjumaysa dalka iyo dadkaas loo adeegayo sababtoo ah doorashooyinku waxay muujiyaan rabitaanka bulshada ama shacabka dalkaas waxay kaloo ka turjumaan hadba garaadka iyo kobaca maskaxeed ee dadka wadankooda uu doorashooyinka ka dhacayo saxaafaddu marka waxay tahay meesha kaliya ee muujin karta ama tilmaami karta in doorashadu ay tahay doorasho xor ah oo xalaal ah isla markaana siisa xogta doorashada la xiriirta dadweynaha wadanka ay doorasho ka dhacayso dalkeena Soomaaliya tan iyo markii xurriyadda uu qaatay wixii ka dambeeyay hababka uu wax ku dooranayay waa la og yahay ma ahayn habab dadka Soomaaliyeed baahidooda iyo danahooda ka turjumaya ma ahayn saxaafadduna ma ahayn xur marka laga hadlo 22 sano ee militariga muddadii burburka oo idaacadaha ama warbaahinta madaxa bannaan ay bilaabeen dhibaatada amni darro ee saxafiyiinta haysta ayaa aad u badnaa taasna waxay yaraysay awoodii ay saxafiyiintu u lahaayeen in ay soo bandhigaan wararka ay bulshadooda u baahan tahay cabsi amni darteed awood darro kale oo haysata darteed ama takoor iyo handadaad joogta oo lagu hayo darteed markii dawladaha ku meel gaarka ay bilowdeen waxaa timid xoogaa rajo ah oo ay saxafiyiintu wax ka qabeen bal in ay wax iska bedeli doonaan xorriyadka ay ku shaqeynayeen iyo xuquuqdii ay u baahnaayeen inay helaan taas oo waajibka koowaad uu ku dhacay mar walba dawladda jirta ee dalka ka arriminaysa saddexdii sano iyo barka ee hadda u dambeysay ee dawladda hadda joogta bilowgeedii saxaafadda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dadkii qabay ama fikir ahaan aaminsanaa in xaaladda saxafiyiinta ay ku shaqeeyaan ay wax badan iska bedeli doonaan oo ay imaan doonto amni iyo badqab oo ay imaan doonto xurriyad baahsan oo ay ku shaqeyn karaan saxafiyiinta oo ay imaan doonto in saxafiyiintu awood ay u yeeshaan wararka ay rabaan bulshada inay soo tabin karaan taas kaliya ma ahan baahida shacabka sidoo kale waa xuquuq dastuuri ah oo aan leenahay haddaan nahay saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo dadka metelo nasiib darro waxaan aragnay dawladdii aan ka tirsanayn ee Soomaaliyeed ee aan hoosteeda ku noolayn inaanay rabin inayna difaacdo inaanay rabin inayna dhowrto inaanay rabin in ay caburinta ay nagu hayaan qaybaha kala duwan ee dawladdu ay ka mid ka tahay inay naga dulqaado bal waxaa nagu batay haddaan nahay saxafiyiinta cadaadiska aan kala kulmayno dawladda cadaadiska aan kala kulmayno hay'adaha ammaanka cadaadiska aan kala kulmayno dadka siyaasiyiinta ah ee dawladda qaybaheeda kala duwan ku jira ama si ogaag dhow arrintaas xanuunkeedu wuu soo badnaa wuuna nagu soo socday muddo ka badan 3 sano iyo bar ayaan u soo dul qaadanaynay hadda oo kulankan aan qabanayno waxa laga hadlayaa doorashooyin inay dhacaan iyo in kale waxaana dadka Soomaaliyeed mar walba ay isweydiinayaan kaalinta saxaafadda ay ka qaadanayso doorashooyinka iyo sida ay saxaafaddu u noqon lahayd mid soo sheegta ama soo tabisa dhammaan wararka la xiriira doorashooyinka
iyo afkaarta ay qabaan dadka Soomaaliyeed hadday yihiin axsaabta siyaasadda hadday yihiin bulshada rayidka hadday yihiin dadka Soomaaliyeed ee maaragtay dhibaatooyinka qaba laakiin annaguna waxaan dareemaynaa in dhibaato ayna haysato oo cunihii iyo afkii nala qabtay oo indhahana laga xiray oo gacmaha aan ka xiranay oo aan dhaqaaqi karin dadkii Soomaaliyeed ee bulshada rayidka ay ugu horeeyaan oo aan rabnay inay nala duubtaan oo na difaacaan waxaan dareemaynaa inay naga gaabiyeen oo dhibaatadeena ayna doonin inay ka hadlaan dabcan bulshada rayid dad kamid ah waa joogaan waana ka hadli doonaan bishii Abriil 14keedii waxaa la xiray wariye ka tirsan goobjoog oo la yiraahdo Cabdicasiis Gurbiye ilaa maanta aan joogno waxa ku socota maxkamad maalinta berri ah oo khamiis ah ayaan ka balansanahay maxkamadda inaan dib ugu laabano kiiska Gurbiye dartiis 14kii bishii afraad Gurbiye markii la xiray xeerarintu waxay soo qortay warqad eedeyn ah oo ay ku sheegaysay in Cabdicasiis Gurbiye uu aflagaadeeyay madaxweynaha waxaana eedeynta lagu saleeyay qodobka 220 ee xeerka ciqaabta 23 Juun xeerarintu mar kale waxay bedeshay eedeyntii waxay soo saartay eedeyn kale oo ay leedahay garsoorka ayuu u gafay oo aflagaadeeyay 22kii bisha 7aad oo shalay ah mar kale waxay soo saartay xeerarintu eedeyn kale oo ay leedahay Cabdicasiis Gurbiye wuxuu ku xadgudbay xafiiska xeerarinta iyo hanti dhowraha guud ee qaranka wuxuuna ku eedeysan yahay qodobada 328 iyo 269 waxaan dareemaynaa ama aaminsanahay saxaafaddu inaysan ahayn dambi in war la sheega oo war la qoro aysan ahayn dambi inaysan ahayn xaraam inay ka mid tahay shaqooyinka caadiga ee lagu shaqeeyo waxaan dareemaynaa in la doonayo in Gurbiye iyo wariyaasha kale ee la midka ah la doonayo in laga hoos bixiyo dalladda sharciga ah ee ay ku hoos nool yihiin ee ay ahayd in lagu difaaco lagu ilaaliyo qofka waxa ilaaliya ama dhowra waa sharciga marka laga wareejiyo ee dalladii laga dul wareejiyo waxa halis ugu tahay in lagu beegsado sababtoo ah sharciga ku ilaalin lahaa kuma hoos jirtid oo kuma hoos noolid waxaan dareemaynaa in lagu xadgudbayo dastuurka qodobadiisa kala duwan oo wada taqaanaan gaar ahaan qodobka 18 iyo qodobka kale ee 32 ay sheegayeen xorriyadda hadalka iyo tan saxaafadda iyo dhowrista xorriyatul qowlka marka dastuurka lagu xadgudbo bulshada rayidka ay tahay inay kaalinta koowaad qaataan sidii dastuurka loo difaaci lahaa axsaabta inay kaalinta koowaad qaataan sidii dastuurka loo difaaci lahaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in qof kasta kaalintiisa uu ka qaato marka la dareemo dawladdu inay ku xadgudbayso dastuurka gaar ahaan xorriyadka asaasiga ah ee ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin oo ay ugu horeyso in dadku hadli karaan doodi karaan wax isu sheegi karaan arrintaas oo aan dareemayno maanta inay meesha ka baxday oo maanta cid hadli karta aanay jirin waxa dhinaca kale xiran oo xabsiga ku jira sida xiriiryaha barnaamijka uu sheegay wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuuja oo ah suxufi ka shaqeynayay warbaahinta madaxa bannaan ee Higsi ee magaaladan ku taala sidoo kalena ka shaqeynayay warbaahinta la yiraahdo Danan ee magaalada Muqdisho ku taala 29 Febraayo ayaa la xiray waxa xirtay nabad sugidda waxay sii daayeen 4-3 maalmood kadib oo ku beegneed 2 bishii Maarso wax eedeyn ah iyo wax dambi oo loo yeelay ma aysan jirin waxa lagu haystay wariyahaas waxay ahayd wuxuu qoray 26 Febraayo qormo uu kaga hadlayo ciidamada Soomaaliyeed ee amniga in dadka Soomaaliyeed halkii ay difaaci lahaayeen inay iyagu ciil badaan inay wadooyinka xirteen in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka ay wadooyinka ku umraan in dhibaato weyn ay magaalada Muqdisho ka taagan tahay ayuu wariyahaas qoray idaacadda ka sheegay Facebook-giisana ku qoray nabad sugidda ayaa xiratay sidaan sheegay 29 February 3-4 maalmood kadib way sii daayeen markii aan ka hadalnay wax eedeyn oo loo jeediyay ma jirto mar kale isagoo idaacadiisa u socda ayaa 7 Maarso wadada laga qabsaday 7 Maarso ilaa maanta wuxuu ku jiraa xabsiga muddo 3 bilood waxa lagu hayay godka Jilcow oo lagu jirdilay lagu garaacay nalal waaweyn lagu shiday indhaha dhibaato ay ka gaartay madax xanuun badan uu soo wajahay kiliyuhu ka xanuunsan yahay cadaadis badan iyo qaylo badan kadib waxa xabsiga dhexe loo gudbiyay 7 bishii Juun sanadkan aan ku jirno ilaa maanta wax eedeyn ah oo loo soo jeediyay wariyahaas ma jirto waxaa inta badan la maqlaa wariyaasha idaacadaha
qaar ka shaqeeya marka la xiro laakiin kiiskan waxaa laga yaabaa inay isweydiinaysaan sababta loo maqli waayey in badan oo looga hadli waayey annagu ka bahda saxaafadda mar walba waan ka hadlaynay waan sheegaynay laakiin waxaan dareemaynaa dadka kale ay ahayd inay nala duubtaan inay si u nooga gaabiyeen ma qabiilaa jira ma garanaayo ma dana dhaqaalaa jira ma garanaayo ma la cabsaday ma garanaayo ma dowladda dadka qaarkood wax siisa oo maaragtaa si hoose u naas nuujisa ma garanayo laakiin kollaytaba bulshada rayidka brofeesarada dadka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyagoo ka hadlaya weli ma aanan arkin kiiskaas saaka waxaa la ii sheegay inuu wariyahaas xabsiga dhexe weli ku xanuunsan yahay dhakhtar looma ogola caafimaad lama geyin bal cuntadii qoyskiisa ay u keenayeen oo loogu keenaya xabsiga ayaa loo diidaya waxaa kaliya loo haystan waxay tahay qoraalkaas aan sheegay ee ciidamada amniga ka hadlaya markii aan la xiriirnay maxkamadaha gaar ahaan maxkamadaha gobolka banaadir iyo tan militariga waxay noo sheegeen shakhsiyaad ka tirsan nabad sugidda inay ku dhagan yihiin wariyahaas oo ay haystaan su-aasha taaganna waxay tahay dastuurku miyaanu sarreyn qof shaksi ah ama nabad sugid ha noqdo ama booliis ha noqdo qof ma iska xiran karaa dalkan oo muddo 4 bilood iyo 15 maalmood qof xabsiga ma ku haysan karaa isagoo xuquuqdiisii muwaadinimo laga qaaday annagoo og qodobka 10aad ee dastuurka kan 12aad kan 11aad dhammaan inay damaanad qaadayaan xorriyadda bini'aadanka iyo tan muwaadinka qodobka 11aad ee faqradiisa 3aad waxay leedahay dawladdu waa inaysan si gaar u takoorin qof muwaadin ama muwaadiniinta ka mid ah abuuja muwaadiniintu ka tirsan yahay marka laga tago qabiilada Soomaaliyeed marka laga tago wuxuu ka soo jeedaa qabiilada Soomaaliyeed ee aan hubka qaadan ama la takooro oo la dhibaateeyo marka sida kale loo sheego qodobka 33aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa qof kasta inuu leeyahay go'aan cadaalad ah iyo garsoor cadaalad inuu helo ayuu sheegayaa qodobka 12aad dastuurku wuxuu sidoo kale sheegayaa mas'uuliyadda dawladda inay ka mid tahay inay xaqiijiso ilaalinta iyo xuquuqda muwaadiniinta iyo in falalka dawladda ay sameynayso aysan ka dhalan in qayb ka mid ah bulshada lagu xadgudbo waxaan dareemaynaa in dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah ee ku dhisan 4.5 in qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo suxufiyiintuna ka mid yihiin inay ku xadgudbayso annagu suxufiyiinta waxaan u naqaanaa dadka aan hubaysnayn suxufiyiintu waxay ka mid yihiin bulshada rayidka suxufiyiintu waxay ka mid yihiin beelaha lagu tilmaamayo inaysan yihiin beelaha la takooro inay ka mid yihiin aan suxufiyiinta aaminsannahay sidaa darteed mar walba waxaan aaminsannahay in bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanku inay tahay inay mar walba na difaacaan markana lagu xadgudbo waxaa jira sidoo kale dastuurku wuxuu damaanad qaadayaa qof kasta inuu xaq u leeyahay inuu helo garsoor cadaalad ah waxaan dawladda gaar ahaan maxkamadaha ka la'nahay in wariye abuuja ay garsoor cadaalad ah u sameeyaan oo xitaa ay maxkamad hor keenaan bal in bal la maqlo waxa lagu haysto la maqlo ilaa maanta kama hayno 22 bishii Abriil maalin kadib markii aan mudaaharaad ku qabanay guriga hooyooyinka wasaaradda warfaafinta ayaa warqad soo saartay ee kaga hadlayso Maxamed Cabdiwahaab Abuuja arintiisa oo ay ku eedeeyeen inuu ka tirsan yahay al-shabaab iyadoo wax cadeyna loo sameyn iyadoo aan la maxkamad iyo baaris midna la marsiin laakiin ay shakhsiyaad ka mid ah niisa ka mid ah oo ku dhex jira dawladda ku dhex jira iyo wasaaradda warfaafinta oo isku naban inay rabaan inay takooraan wariyahaas ay takooraan qof aan maxkamad xukumin qof aan dambi loo sameyn in wasiir sida wasiirka warfaafinta ama qof ka tirsan dawladda ka tirsan warqad inuu soo saaro oo qof ku eedeey inuu yahay argagixiso uu yahay iyadoo laftirkeeda waxaan u baahannahay bal sharciga meesha kaga jirto iyo sida ay noqonayso in iyada laftirkeeda la caddeeyo marka intaan ka gudbo xaqii helista xogta aad buu noogu adag yahay baarlamaankii lama tegi karo waad la socotaan xog lagama heli karo wasaaradihii hore uga duwanaayeen uga horeeyeen ugana dhib badnaayeen oo xogtii laga joojiyay madaxtooyadii xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo meel kasta wariyaasha waa laga xanibay waxaan dareemaynaa in dhibaato weyn ay dalkan ka jirto xagga helista xogta ah in suxufiyiinta aanay shaqayn kari lahayn in wariyaashii la dilay ee dalkan lagu dilay dawladdu aanay rabin inay baaritaan u furto cadaalad ah oo dadka dila maxkamad la hor keeno bulshada rayidka waxaan bal ka codsanaynaa bal arrimahaas inay ka hadlaan oo wax ka sheegaan bulshada rayidka iyo baarlamaanka dadka nagala jooga iyo cid kasta oo aaminsan xorriyadda hadalka waxaan ka codsanaynaa bal in ay marka saan oo kala dhacdo suxufiyiintu waxay halis ugu jiraan dalka inay ka tagaan
12 qof oo suxufiyiin ah ayaa sanadkii la soo dhaafay dalka ka cararay oo aan diiwaan gelinay waxay noo carareen amni darro ilaa maanta ay cararayaan iyadoo covid-19 uu jiro iyadoo diyaaradii xiriin ay suxufiyiintu wadanka ka cararayaan lug bayna uga baxayaan xuduudahay ka talaabayaan dhibaatadaasna waxay tahay dhibaato ay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo hay'adaheeda amniga ay suxufiyiintu ku hayaan wal waa neefsan la nahay bal